gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro maalmihii u dambeysay waday kormeer uu ku garayo xaaladaha dhabta ay ku sugan yihiin xarumaha dawladda ee gobolka Awdal ayaa maanta sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal oo weheliyaan taliyaha qaybta gobolka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo xogayaha fulinta ee gobolka Awdal ay soo kormeereen saldhigyada booliska ee magaalada Boorama iyo sidoo kale xabsiga laga dhisayo bariga Boorama oo dhismihiisu ay ku dhow yahay waxaana xarumaha saldhigyada ay kulamo gooni ay kula yeesheen taliyayaasha saldhigyadaasi gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa sidoo kale soo kormeeray xarumaha wasaaradda ganacsiga warfaafinta ciyaaraha tamarta biyaha iyo kastanka deegaanka Gorayacawl iyo sidoo kale goobta ay ku sugan yihiin dhakhaatiirta loo tababaray in ay ka baadhaan cudurka coronavirus dadka ka soo galaya xuduudda Gorayacawl intaasi kadib markuu kormeerka soo dhameeyay gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro oo warbaahinta la hadlay kormeerkan galay maalintii saddexaad iyo waxyaabo uu ku soo arkay waxna uu yidhi maanta oo maalintii saddexaad kormeerka kuna soo gabagabeynay talisyadii ciidanka booliska iyo asluubta iyo wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda goobtaan joognaa wasaaradii dhalinta iyo ciyaaraha garoonkii magaalada dhexdeeda waxaanu ka bilownay kormeerkayga saaka taliska booliska saldhigyada bariga iyo dhexe iyo qaybta waanu soo maray runtii hawl wanaagsan baa meesha ka socotay ciidan tayaala joogay magaalada nabadgelyadeedii si wanaagsan bay u sugan tahay waxaanu soo maray jeelka cusba labadii qaybood u socday gabagabay ku dhowyiin insha Allah iyagana si loo kala fududeeyo jeelka weyn magaalada in dhaqso loogu dhameystiro insha Allah waxa saakaanu soo maray wasaaradda ganacsiga waxaanu soo maray biyaha waxaanu tagnay customkii controlka iyo kii xadkaba inta shaqada soo wanaagsan bay u socotay wixii baahayahana waanu urursanay insha Allah saan ku ballan qaadnay buuga baahayaha ayaanu ku talagaleynaa waxaan filayaa markaan buugayaga sulmaadna waanu shaqo tagi doonaa dhamaantayo wixii gobol ahaan aanu isdabari karana waanu isdabari wixii baahideeda ka xoog roonaana waanu la qayshan waxaanu laakiin ku rajaynahay inaanu dhaqaajino hawsha gobolka taala gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo ah ninka aan ka rabo inuu aatadanisu sameeyo suudiyaashan waayo cabashada dadweynaha iga timi waxay kow ka ahayd warin xafiiskiisii laga waayay suuqa laga deedeeyo taasuna dib u dhici mayso mas'uuliyadeedana hay'adda shaqaalaha iskale Cabdirasaaq Umar Macadawliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama.